الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد إن شاء الله تعالى وحين بلابينا كتابك الأصول الثلاثة أما ثلاثة الأصول لبدا مقعبة ولقو إطلاقه إلا يراد الأصول الثلاثة إلا يراد ثلاثة الأصول مطبعها قاركود بمدبا يقرين مركا كتاب كاس وكتاب مهمة ونألفي شيخ الله يرحمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيين مركا إن شاء الله تعالى رقدونا كتابكنا بابك وكساب سنية واعتقاد عقيد وكساب سنية عقيدتنا أمورها الدين تواقم مهم سنته خاصة ولبا وحكساب سنية هاي صدح أصل أو وين صدح ذا مركا أصل أو كساب سنية هاي وصدح ذا مسائل القبر قفك اللقوة الدين أيها حبالها marka xabaasha la dhigo la su'aalayo man rabbuka wama diinuka wama nabiyuka wa ta nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegay oo ku sheegay ahadiista saxiixa ah ruuxa marka xabaasha la dhigo ee la aaso ee dadkii aasayay ay ka soo jeestaan oo ka soo laabtaan isagoo si maqlaaya sanqadha ama qarafta kabahooda uu si maqlaayo ayaa laba malak u yimaadaan labada malak waxay weydiinayaan man rabbuka wa kuma rabbiga waman nabiyuka wa kuma nabigaagu wama diinuka maxay tahay diintaadu saddexdaas su'aalood bay weydiinayaan oo ruux walba la su'aalaya marka xabaasha la dhigo waa saddexda asal ee uu kitaabku ku saabsan yahay waa masaa'il qabr adillada qaarkoodna saddexdaa waa kulmisay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam daaqa طacma aliimaani man radiya biاllahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu alayh wasalam rasuula yacni iimaanka waa dhadhamiyey baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo dhadhankii iimaanka waa dhadhamiyey ka uga raali noqday ilaahay ka raali noqday xaal uu ilaahay rabbi yahay islaamkana ka raali noqday xaal islaamku diin yahay muxammadna ka raali noqday xaal muxammad uu rasuul yahay sala allahu alayhi wasalam xadiiskaasina saddexda asal waa kulminaya markaa saddexdaas iyo adilladoodii iyo waxyaalo kasii farcamaya oo ku tacalluqa ayaa kitaabku ka warramaya marka waa arrin muhima weeye in loo aqoon yeesho la barto in sha allahu tacaala waxaynu sharxi doonnaa si kooban aynaan kuna dheeraanayn aadna u gaabinayn sheekhu wuxuu yidhi raximahullah bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi illaahi magaca ilaahay baan ilaahaasoo alraxmaani kii naxariista ku sifaysnaa ahaaday ama kii naxariista caamkaa u saaxiibka ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono ahaaday bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen alraxmaan waxaa laga tilmaamayaa almuttasifu biaraxmati alwaasica waa kii ku sifaysnaa raxmadda ballaadhan markaa sifatu daat baa sifada laga qaadanaya tahay alraxiimna waa kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday markaa sifada laga qaadanaya alraxiim waa sifatu ficil ilaaha magaciisaan ku bilaabaya oo isim kastoo asmaada ilaahay ka mida ama magac kastoo magacyada ilaahay ka mida wuxuu koobsanayaa sifo sifada alraxmaan laga qaadanayo alraxma ah waa sifatu daat oo weligiiba allah raxmadu waa ku sifaysnaa sifatu daat macnaheedu waxa weeye hiya alatii lam yazal walaa yazaalu muttasifan biha waatuu mar walba ilaahay ku sifaysnaa mar walbana ku sifaysnaan doono xaal axwaasha ka midana aanu ka bixin taasaa waxaa la yidhaha sifatu daat alraxiimna sifada laga qaadanayo raxma ah waa sifatu ficil oo waxaa looga jeedaa waa kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono u naxariisanayo oo waxaa laga tilmaamayaa tacalluqa raxmaddu ay ku tacalluqayso oo la xidhiidhayso marxuumiinta loo naxariisanaayo bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen alraxmaan sifada markaa waxay ka qaateen raxma caama alraxiimna raxma khaasa
marka magaca ilaahay baan ku bilaabaya saddex isim baana ku sugan allah iyo arraxmaan iyo arraxiim bismiga jaarka iyo majruurkaasi waxay ku tacalluqayaan ficil ama isim haddii isim lagu tacalluqsiiyo waxay noqonaysaa ibtidaa'i bismi illaah bilowgayga aan kitaabkan bilaabanayo wuxuu ku sugnaanayaa magaca ilaahay hadduu ficil ku tacalluqana wuxuu markaa noqonayaa in marka la yidhaahdo abtadi'u ama usanifu ficilkaasi caam ha ahaado sida abtadi'u ama khaas ha ahaado sida usanifu ama u'allifu waa qorayaa bismi illaahi magaca ilaahay baan ku qoraya haddaad dambaysiisana wuxuu noqonayaa bismi illaahi araxmaan araxiim aktubu ama abtadi'u magaca ilaahay baan ku qoraya ama magaca ilaahay baan ku bilaabanaya sharaxa dad badani haystaan ama marka aadka mashhuurka u ah ee aadka loo qaataa ibnu cuthaymiin wuxuu tilmaamayaa in ficil in la qadara ay fiican tahay oo jaarka iyo majruurka xarfu jarkan wuxuu ku tacalluqayaa yacni ficil inuu ku tacalluqaa fiican tacalluqu waa xidhnaanshaha macnuhu ku xidhaya marka magaca ilaahay baan ku bilaabanaya wey marka saddexda isimna waa la israaciyey bismi illaahi araxmaan araxiim sheikhuna wuxuu ugu bilowday kitaabka iqtidaa'an bikitaab illaah waayo qur'aanka suuradihiisa badankooda waxaa lagu bilowday bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu tawba marka laga reebo 113 suuradood ee kale bismi illaahi araxmaan araxiim baa lagu bilaabay marka isagoo ku dayanaya ayuu sheekhu ku bilowday bismi illaahi araxmaan araxiim wakadalika nabigu sala allahu alayh wasalam waraaquhu qori jiray wuxuu ku bilaaban jiray bismi illaahi araxmaan araxiim marka itibaacan linabiy sala allahu alayh wasalam raacisuu nabiga raacayo iyo ku dayasho uu kitaabka ilaahay ku dayanayo ayuu markaa ugu bilowday bismi illaahi araxmaan araxiim ugu bilowday iclam sheekhu wuxuu uhi raximah llah ogow raximaka allaahu ilaahay ha ku naxariiste waa maadi looga jeedo ducaa annahu yajibu sha'niya inay waajibayso arrinku inuu yahay inay waajibayso calaynaa tacallumu 4 masaa'ila barashada la baranayo 4 masalo 4 masalo in la bartaa inay waajib inagu tahay ogow 4 masalo waa maxay aluulaa masalada koowaad alcilmu waa in aqoon ama cilmi la yeesho wa huwa cilmigu macrifatu llahi waa in allah la garto wa macrifatu nabiyihi iyo in la garto nabigiisa sala allahu alayh wasalam muxamed ah wa macrifatu diini lislaam iyo in diinta islaamka la garto biladillati daliilla lagu garto oo mid walba daliilkiisa lagu garto ruuxu inuu aqoon yeesho oo diinta marka uu barto waxa ku waajibka ah waajib bay ku noqonaysa oo wixii ku waajib ah inuu caqiideeyo inuu rumeeyo inuu sameeyo ay ku waajib tahay inuu u aqoon yeesho bartaana waajib bay ku noqonaysa shaygii qofka ku waajiba inuu caqiideeyo rumeeyo haddaanu baranin ma caqiidayn karo ma rumayn karo awalan waa inuu gartaa markuu garto dabadeed buu caqiidayn karaa laakiin isagaan garaninoo aqoon u yeelanin dee ma caqiidayn karo waxyaalaha ay waajibka tahay inuu camal ahaan u sameeyo sida salaada sida soonkan hadda inagu soo dhow ilaahay hayna gaadhsiiyo haynoo yasiree ruuxii mukallafa ay ku waajibto inuu barta axkaamteedana waajib bay ku noqonaysa waayo waajibkii inuu gutaa uma suuragal aha haddaanu aqoon u yeelan oo waxa ku waajibka aanu garan salaaddii haddaanu garan waxay ku asaxayso iyo waxay ku burayso iyo waxa waajibka iyo waxa shardiga ah iyo waxa rukniga aanu baranin salaada sidii la rabay ulama iman karo
waxa dhici karta isagoo isla waa tukatay haddana inaan salaadiisaasi asixin oo mid ka juusayso ka asaxaysa ayna noqon ayaa suuroobi karta waayo waxa dhici karta rukni arkaanta salaada kamida inuu ka tago waqtigii nabiga bay dhacday sallallahu alayhi wasallam in masjidka soo galay oo nabiga meel u dhow ku tukaday dabaadna markuu labadii ragcadood tukaday dabadeed buu nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo waa salaamay salaamtii waa ka celiyay nabiguna wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam irji' fa salli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko ma tukani yani waxa tukatay salaad ma ahayn waxay ahayd salaad la'aan faraja'a fa salla kama kana qad salla ninkii intuu noqdo haddana tukadayo uu isiri salaadii hagaaji sidoo markii hore u tukaday ayuu markii dambana u tukaday inaanu garanaynin oo salaada garashadeeda wax uga dhinaayeen bana u saabtay markalu haddana nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam irji' fa salli fa innaka lam tusalli markaasuu nabiga ku yiri sallallahu alayhi wasallam ninkiiba wuxuu ku oranayaa nabiga والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني waxaan ku dhaartay ilaaha ku soo diray xaalad nabi tahay sidaa si aan ahayn hagaajin maayo garan maayo ibar markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam salaadii baray haddii waqtigii nabigaba ay dhacday sallallahu alayhi wasallam in dadka qaarkood iyagoo isla waa tukateen haddana nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa tukateen salaad ma aha bal maxaad malaynaysaa maantana soo dad fara badani lagama yaabo xaalkoodu inuu caynkaas oo kale yahay way isleeyihiin dadaala way weysaysanayaan way salaadayaan haddana salaadoodu salaad la'aan ay tahay taasi waxay ku tusinaysaa barashada wixii inagu waajiba in la bartaa inay tahay lagama maarmaan ay tahay marka sheekhu wuxuu yiri waxaad ogaataa ilaahay ha ku naxariiste waa duco oo khitaabka uu ruux kasta oo hadalkani ku dhacayo uu sheekhu la hadlayo wuxuu markaa u dhexgeliyey jumla ducaa'iya duca uu ducaynaayo isagana ilaahay ha u naxariisto raximahullah raxmatan waasica inay inagu waajib tahay tacallumu 4 masaa'il 4 mas'alo in la bartaa inay waajib inagu tahay sida ogow masalada koowaad waa al-ilmu waa in aqoon la yeesho wa huwa ilmigu aqoonta waxa laga tilmaamayaa sharciga in aqoon loo yeesho waliba cilmi si khaas oo sharciga aqoonta loo yeelanayo ka sii gaaro masalooyin gaar ah loo sii aqoon yeelanayo ayuu hadda markaa waliba sheekhu ka wadaa waxyaalo kale waajib ha ahaadaan wa huwa ilmigu macrifatu llahi wa in allah la garto la aqoonsado wa macrifatu nabiyhi nabigiisa muhammad sallallahu alayhi wasallamna in la garto la aqoonsado wa macrifatu diin al-islam diinta islaamkana in la garto oo aqoon loo yeesho oo ruux waliba uu ilaahayna garto uu nabigiisana garto uu diinta islaamkana garto bil adillati dalila ku garto oo adilla cadaynayso daliiladaasi ha ahaadaan qaar sharciya oo aayaad qur'aana ama axaadiis nabi inuu ku aqoonsado ama ha ahaadeen adilla aqli ah oo daliilku wuxuu u qaybsamaa daliil samci iyo daliil aqli daliilka samciga waxa loo jeedaa sharciga waxa samci loo yiri waa wixii la soo rarayo waa la maqlayaa sidaas samci loo yiri maqalkii baa loo nisbiyay aqlina waxa looga jeedaa waa aqliga daliil lagu garanayo oo mesela waxaynu garanaynaa makhluuqaadkan faraha badan la abuuran ee isku habaysan ee isku nidaamsan aan wax iska hor imaadi ka jirin in cid abuurtay jirto waayo iskamay abuurmino iskamay samaysmin iskamay abuurmino iskamay samaysmin cid ba abuurtay waa tan la yiraahdo nin reer miya la weydiiyay
oo markaa waxa weeye ka mid ah carabta reer miyigoodii ayaa lagu yidhi ilaahay maxaad ku garanaysaa ilaahay maxaad ku aqoonsanaysaa ku garanaysa dabeedna wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciir saaladu waxay ku tusisaa tuluddii martay waalaharu yadullu cala almasiir raadkuna wuxuu ku tusiyaa maritaankii la maray fasamaa'un daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa baxrun daatu amwaaj afalaa tadullu cala asaanici alkhabiir mar haddii saaladii yaraydba neefkii maray lagu garanaayo raadkana ciddii martay lagu garanaayo samadan xiddigaha leh iyo qorraxda iyo dayaxa iyo arladan markaa waddooyinka leh iyo baddan mawjadaha li ilaahii sameeyey miyaynay ku tusinayn khaaliqii abuuray miyaynay ku tusinayn oo lagu garanay waxaynu garan karraa dadka reer miyigii markay xooluhu ka lumaan xoolaha waa baadi doonaan waa raadiyaan raadka hadday helaan waxay isleeyihiin yacni neefkii ma waayaysid waxay ku maahmaahaan raad haye ruux haye yacni haddaad raad ka hayso neefkii maray raqdiisa ama markaa isagoo nool ama raqdiisa labada midun baad heli hadduu bahaldilay oo u dhintayna bakhtigiisaad u tegiyo waad ku quusan haddii kalena isagoo nool baad u tegi marka waxay ku maahmaahaan raad haye ruux haye saalada waxay garanayaan noocii dhigay bay garanayaan markaasay wakhtiyada qaarkood intay taabtaan bay waxay yidhaahdaan xilligu maray waxaa laga yaabaa inuu wakhtiga ahaa jireeca iyo adayga ayay ka qiyaasaan masalan oday markaa hashii ka luntay raadinaya hadduu inan dhallinyari arko oo magaalada ka tegey oo yidhaha adeer maxaad egeegaysaa oo yidhahdo neef baa iga lumo oo neefkii baan raadinaya oo dabeedna ku yidhahdo meesha neef ma marin uu ku yidhaahdo oo waa maxay soo kan raadkiisi hadduu ku yidhaahdo masalan raadka neef ma dhigin isagaa isdhigay oo saaladana iyadaa isdhigtay muxuu u qaadan lahaa markaa inankaa inuu waalan yahay soo maa uma jawaabeen hadha wuxuu odhan lahaa mid yaroo waalan baan arka inaan caqli jirin ayuu u qaadan lahaa haddii saaladii iyo raadkii yaraa la garanaayo ilaaba ilaa cid dhigtay inay jirto ama raadaysay nooca uu yahayna mar walba lagu sii garanayo cidda dhigtay cidday tahay cirarkan iyo dhulkan iyo buurahan iyo badahan iyo dadkan iyo xayawaanaadkan iyo xoolahan iyo bahalahan qaar hoosiya qaar saraba leh iyo dhirtan yacni waxaasoo dhammi miyaynay ku tusinayn ilaahay abuuray inuu jiro waa ku tusinayaan waa daliil caqli ah caqligaa lagu garanaya xataa caqligu wuxuu ku tusinayaa sida markaa nidaamka makhluuqaadkani isugu habaysan yihiin oo inay isaga hor imanaynin cidda abuurtay ee maamulaysaa inay tahay yacni waaxid inuu yahay oo khaaliqu mid keliya uu yahaye qaar fara badan aynay ahayn waxaynu garan karnaa meel haddii markaa magaalo ka soo qaada ama beled ayaa waxaa ka taliya 2 boqor ama 2 madaxweyne inuu nidaamkoodu hagaago labadaasina ka wada taliyaan ma suuragal tahay mid walbana maamulkiisu ku fulaa maya waa in iska hor imaad ka yimaadaan waa in mid u hadhaa low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata qur'aanka waa laynoogu tilmaamay daliilka caqliga aayad kale ilaahay wuxuu yidhi idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacd daliilka caqligaabaa la ishaaraya la tilmaamaya fi lqur'aan aayad kale ilaahay wuxuu yidhi am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun daliilka caqligaabaa la tilmaamaya marka adiladu waxay u qaybsantaa daliil caqliya iyo daliil samciya labadaba waa qaybsantaa athaaniyatu masalada labaad hadda waa ijmaalo tafsiilkii iyo kala saarsaarkii iyo caddayntii gudaha inoogu imanaysa athaaniyatu masalada labaad ee waajibka aynagu tahay inaynu garannaa alcamalu bihi waa camalfalka lagu camalfalo lagu dhaqmayo waxa cilmigaasi keensanaya ama cilmigaa lagu camalfalayo cilmigaa lagu camalfalaya waxaa loo jeedaa waxa cilmigu laasimsanaya keensanaya lagu camalfalaya hadday tahay caqiido
iyo hadday tahay xuquuqda ka sii dhalanaysa oo in awaamirta la qaato oo la farsoomo nawaahidana laga reebtoomo athaalithatu masalada saddexaad ee waajibka inagu aynaynu garanno addacwatu ilayhi waa yeedhista dadka loogu yeedhaayo yacni cilmiga uu nebigu la yimi sala allahu calayhi wasalam in dadka loogu yeedhaano waa mid waajiba taana waa in la gartaa oo markuu ruuxu isagu hagaago ou khayrkiiyo wanaagga la yimaado xagga iimaankiisa iyo caqiidadiisa iyo xagga camalkiisa iyo waajibada gudashadeeda inuu iska fadhiisto oo dadka kale aanu xaalayn ma aha waa inuu dadka kalena ugu yeedhaa khayrkaas oo uu yidhaahdaa war sharcigaa nebiga ha la raaco war ha la qaato war ha la barto war ha lagu camal falo addacwatu ilayhi waa in cilmigaas dadka loogu yeedhaa shareecada uu nebigu la yimi sala allahu alayh wasalam waa in dadka loogu baaqaa alraabicatu masalada afraad alsabru cala aladaa fiih waa in lagu sabro oo lagu adkaysto cala aladaa dhibaatada laysku dhibaayo fiihi marka waxa weeye sharcigaas laysku dhibaayo oo markuu qofku wanaagga isagu la yimaado dadkana ugu yeedho kollayba dhibi waa ku imanaysa dhibtaasi ha ahaato inay dadka qaarkood caayaan ama aflagaadeeyaan inay dacaayadeeyaan inay borobaganda ka faafiyaan inay masabidaan inay hadday doonaan yacni markaa gacanba ula yimaadaan marka dhibaato af iyo addinba yacni waa ku iman kartaa marka waa inuu ku sabraa dhibta lagu dhibaayo sharcigaas lagu dhibaayo waa inuu markaa ku sabraa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay uu yidhi waalcasri casarkaan ku dhaartay ama salaadda casar baan ku dhaartay ama wakhtiga casarka la tukadaan ku dhaartay tafsiir kale waxay culammadu ku fasireen waalcasri waxaan ku dhaartay wakhtiga oo casriga wakhtigoo dhan casri waa la yidhahdaa markay dadku leeyihin waxaan joognaa wakhti casri ah waxay u jeedaan wakhti cusub marka waalcasri ay waddahri wakhtigoo dhan baan ku dhaartay ama waalcasri wakhti khaasoo wakhtiga salaadda casar la tukado ee salaadda casar joogtaan ku dhaartay ama waalcasri salaadda lafteeda salaadda casar baan ku dhaartay saddexda qowlba culammadu waa sheegeen ilaahay baa dhaartay hadalkiisuna waa dhab laakiin si uu inoogu sii adkeeyo ayaa iyadaan ilaahay cidi dhaarsanin ayuu ilaahay inoo dhaaranaya ilaahayna isaguna waa isku dhaartaa makhluuqaadkiisa cidduu doonana waa ku dhaartaa laakiin innaga inooma bannaana cidaan ilaahay ahayn inaynu ku dhaarannaa inooma bannaana innaga inooma bannaana cidaan allaah ahayn inaynu ku dhaarannaa inooma bannaana waayo waa laynaga reebay oo nebigaa wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut kii doonaaya inuu dhaartaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso kii doonaya inuu dhaartaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso waa xadiis saxiixana ku sugan xadiis kale oo saxiixo imaam axmed wakayruhu soo wariyeen wuxuu sheegayaa inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak ku kastoo ku dhaarta cidaan ilaahay ahayn yacni shirki buu galay ama waa gaaloobay markaa dunuubta kabaa'irtee waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaaranno ilaahay cidaan ahayn dembiyada waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaaranno cidaan ilaahay ahayn ilaahay laakiin cidduu doonuu ku dhaaran karaa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay wuxuu sameeye lama yidhaahdo maxaad u samaysay laakiin innagu addoommaynu nahayoo mar haddaynu addoommo ilaahay nahay wixii ilaahay inoo diiday oo inaga reebay ama rasuulkiisu inoo diiday ee rasuulkuna wuxuu inoo diidaya waa waxyiye oo waxyi unbay ku timiye waa inaynu ka hadhnaa addoonku wixii laga reebay waa inuu ka reebtoonaadaa wixii la farayna waa inuu farsoomaa dhaartu maxay u dhacaysaa oo loo dhaaranaya waa tan muqsamu lahugii loo dhaaranayay ina alinsaana la fii khusrin bini aadamka dhammaantii wuxuu ku dhex sugan yahay khasaare ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane kuwaasaa laga soo reebayaa khasaaraha
وعملوا سميي الصالحات عمل لذا وناكسن سميي وتواصوا إصدر دارمي بالحق حق إصدر دارمي وتواصوا إصدر دارمي بالصبر صبر كإصدر دارمي الإنسان أشا كجرتا وجنسية استغراقية وحلوغة كذا إنسان أردن بني آدم أردن بلو كذا أشا مركا جنسية استغراقية ماشي هذا كل بعد كرته وهدي كل لدتشيو معنوه حنقنا يا صح هدي الأوران لها إن كل الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعضها معنوه إنه صحيح بني آدم كدمانتي خساره كل حسويه كو أفرتا صفة كلا صدي موياني كو أسيقو خسارها وكبحين إن أشهر أن عهدية اللوغة شيدين الإنسان أو إنسان قارة أن لو شيدين إنسان ودل لو شيدين وحكو تسينيسا إلا باكدا ودعضي وحين علماء يقولون إلا ومعيار العموم وميزان كعام لماذا لقو قرطو مركا مرهدا إلا كدا ودعضي أشهر وجنسية استغراقية عدة أفرتا صفة كلا صدي والله قريبا يقا خسارها iyagu kuma jiraan lafdiga hore haba soo guda galaan oo waxay kaga hadheen istisnaha laga reebay bay kaga hadheen afarta sifo uu sheekhu inoo sheegay oo ku saabsan cilmiga iyo amalka iyo dacwada uu qofka khayrka ugu yeero cid iyo sabirka uu ku sabrayo afartuba suuratul asr waa ku sugan yihiin cilmiga waxa laga qaadanaya iimaanka oo iimaanki waa aqeedayn oo waa rumayn إلا عقيدة ينمى قالها هدان لا أقون صنو لبرن عملكنا وحكوتو سنة وعملوا الصالحات وعملك دعودي دتك خيرك أوغو ياريين وحكوتو سنة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصي إسو دردار الله إسو دردار ميو وحوناك سن ودعو ويارس وناك ليسو يارايو صبر هلا يسو يارو حقها الله يسوق يارو صبر كنا وقيب حقها كمذا مركا تواصي وحو فائدين يا إني قارب قارك كلا أدر دارمان وناقي يا خيرك وحي فائدين يا إني يسوق يارو صبر كنا وحلقا قادنا يا وتواصوا بالصبر صبر كياريس اللي يسوق يارو وحو فائدين يا إلا الصبر إني لازم تاي إلا الصبر إني تاهي mid ma'muura oo la isfaray inay tahay ayay ku tusinaysaa marka afartii masalaba suuratul asr la yiraahdo waa ku sugan tahay afarta masalaba waana laga daliishanaya adilla kalena waa leedahay oo laga qaadanayo laga daliishanayo sabirka la sabro as-sabrigu asal ahaan waxa weeye waa xabsu nafs sabir asal ahaan waxa la yiraahdaa وحبساد نفط لحبسه الحرة حال وحرة يا نفطة وحال وحرة يا صدح الرين كو طاعة إيا خير كالسمين تلا السمين أيو والله قو الصبر يا نفطة والله وحرة يا ويا خير كي وناقي وحيلي المشقة لبعته لي نفطنا وكهانيسا وينوقف قبوغي ويسيستو وسو ويسقاته ويسقاطت سمايو أو صبحه أو جماعة يمادو أو جماعة لا تكدو نوع مشاقية دباتة أبا كجرته هرددي معانيد بوكا كعيا صلاة دي عبادة دي بانو كعيا إنو كصبروا باهيان صونكي مركو صومو عنتدي يعبتانكي أتشعلا أي إساقو قاتشون يهرادا أي نفتكو حبسا يا يكو صبريا oo ku xidhaya nafti biyuhu agtiisa yaallu iska celinaya soo u sabro oo ajarka soonta u helo marka taacadii waxay u baahan tahay in lagu sabro oo lagu adkaysto ay u baahan tahay oo lagu ilaawo dhibta ay leedahay sawaabka iyo waxa laga rajaynayo lagu ilaawo waqtiyada qaar kood qofku intuu xanuunsado ayaa dawo qaraaro aanu liqi karin baa la oranayaa tana ku dawo ah sida dawada kaneecada kale isagoo qaraarka dawada nacaya ayaa haddana loo oranayaa dawadii lagu soo qoray ee dhakhtarku ku soo qoray waa taas liq sidaana u liq ha kala jari qaraarkaasi dhib buu ku yahay wuxuu ugu sabrayaa
waxa uu ka rajaynayo ah inuu caafimaad helo sababteeda ku helo biidn illah dee awaamirta sharciga laynagu faray inaynu ku sabirnaa ka awlaysanoo ku adkaysanno oo nafta ku xidhno oo mashaqada iyo dhibaatada yar ay leedahay aynu ku ilowno waxaynu ka rajaynayno sawaab iyo ajra marka asabru calaa taacati illah waa qaybta labaad waa asabru can macsiyati illaah waa in laga sabro macsida ilaahay laga sabro macsida ilaahay baa laga sabraya waxaa loo jeedaa waxa dembiyada ah ee rabbi lagu caasinaayo baa laga adkaysanayaayo nafta laga xidhaya walow naftu haba jeclaato ha ku mamanaato waxaa laga yaabaa waxyaalaha xaaraantaa qaarkood qofku isagoo markaa shahwe ahaan waxaa jecel oo naftiisu ay jeclaysanayso baa haddana iimaanku wuxuu keensanayaa inuu iska xidho oo waxa iska ilaaliyo waa dhallinyaro wuxuu u baahan yahay yacni mawdicuu shahwadiisa ku guto xalaalna ma haysto xaaraan inuu ku tallaabsado iimaanku wuxuu keensanayaa inuu ka xidho oo uu ku sabro cifada iyo dhowrsoonida uu ka dhowrsoon yahay sinada iyo xumaanta naftii baa laga xidhayaa masalan waddooyin xaaraanoo uu ku helaayo xoolo ayaaba u muuqatay iimaanku wuxuu keensanayaa inaanu eegin xoolahaa yar ee ciqaabta iyo waxa ka dhalanaya ay sababayaan inuu eego oo sidaa aawadeed naftiisa uga xidho marka macaasidii in laga sabro oo laga adkaysto oo layska xidho layska xakameeyo macsidana waa in laga sabro waa qaybta saddexaad waxay tahay asabru cala almasaa'ib dhibaatooyinka in lagu sabro ruuxii marka waxaaba ku dhacaya wakhtiyada qaarkood shay loo qadaray oo musiibo ah sida xanuun sida markaa cidduu jeclaa ama qaraabadiisa inay ka dhimato sida markaa inay aafaad kaliya dhibaatooyin ku dhacaan inuu faqri ku yimaado waxyaalo badan oo dhibaatooyina dhici kara inay ruuxa la soo kulmaan sabirku wuxuu keensanayaa inuu masaa'ibtaana ku sabro sabirkuna sidiisaba waa waajib sunne ma aha sabirku waa waajib sabirka waajibka ahina ma aha sabirka sabir taagwaa la yidhaahdo oo dadka qaarkood marka ay dhintaan dadka uu jecel yahay ama qaraabadiisu ay dhimato aabbihii ama hooyadii ama walaaladii yacni ama masaa'ib markay ku yimaadaan waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood baroortaan dumarka qaarkood ha u badnaadane ma wada ahee dadka qaarkood inay baroortaan baa dhacda oo ay dhulka isla dhacaan oo maryaha jeexjeexaan oo waxa weeye hoogayay iyo ba'ayayda ay guraan may sabrin marka dambe ay daalaan baa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa iska sabraya kaasi kii fadliga lahaa ma aha waajibkiina waa laga tegey waa sabir taagwaa baa la yidhahdaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray gabadh xabaalaha dul joogta oo xabaalaha korkooda ka ooyaysa oo ka barooranaysa markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam isbirii gabadh yahay sabir gabadhaasi nebiga may garanayn dabeedna waxay ku tidhi ordoo iga tag waxa i helay kuma helini nebigu waa ka tegey sala allahu alayh wasalam isumana sheegin markii dambaa lagu yidhi ninka aad hadalka ku tidhi ma garanaysee kula hadlayey markaasay tidhi may markaasaa lagu yidhi wuxuu ahaa rasuulkii sala allahu alayh wasalam gabadhii markaasay taana ka murugootay inay rasuulkii hadalkaa ku tidhi nebiga guryihiisii bay u soo kacday xaggoodii guryihii nebiga markay timina gaadh ilaalinaya iyo waxba kamay helin istaaf iyo gaadh ilaalinaya kamay helin markii dambe markii nebigii aragtay sala allahu alayh wasalam bay waxay ku tidhi kuma garanayn haddaan sabrayaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirka maxmuudka ah ee fiicani waa marka ugu horraysa ee qofka dhibaatadu ku dhacdo yacni sabirkan waxa weeye sabir taagwaa la yidhahdo maaha yacni marka ugu horraysa ee musiibadu ku dhacdo sabirka la sabro
weeye ka fiican ee la ysfaraya marka suuraddan waxaa laga qaadanayaa qofku naftiisana inuu islaaxiyo hagaajiyo dadka kalena inuu ku dadaalo inuu hagaajiyo oo ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waxay ku tusinaysaa inuu naftiisii u noqday saalixan linafsih mid xagga naftiisa u wanaagsan oo isagu wanaaggii la yimi watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabrina waxay ku tusinaysaa inuu yahay muslixan ligayrih dadka kalena inuu yahay mid hagaajinaya oo nafcigiisi iyo waxtarkiisi iyo wanaaggiisii dad kalena u tallaabayo qaala ashaaficiyu raximahu allahu tacaala imaamu shaafici wuxuu ihi raximahu allahu ilaahay ha u naxariistee low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi ilaa hadihi suurata lakafathum haddaanu ilaahay soo dejin lahayn xujatan calaa khalqihi wax xujo iyo daliil ku ah khalqigiisa ama makhluuqaadkiisa ilaa haadihi suurata suuraddan mooyaane haddaanu wax kalaba oo qur'aanaba aanu soo dejin lahayn lakafathum way ku fillaan lahayd oo waxay ugu kaafin lahayd oo ugu fillaan lahayd xagga wacdiga iyo waanada iyo boorrinta khayrka lagu boorrinaayo ee lagu dhiiri gelinaayo ama lagu tirtirsinaayo ugama jeedo imaamu shaafici raximahullah axkaamta shareecadoo dhan barashada uu baranayaa suuraddan baa ugu fillaan lahayd oo xalaasha iyo xaaraanta iyo wax wala oo shareecada ka midaba barashada uu sanaddan ruuxu bartaa waa ugu fillaan lahayd haddaan wax kale la soo rogi lahayn taa ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa xagga markaa tirtirsiga iyo dhiirigelinta qofka lagu tirtirsinaayo ama lagu dhiirigelinaayo khayraadkii camalka saalixa iyo wanaagga iyo qurubaadka lagu tirtirsinayay ugu fillaan lahay muraadka looga jeeda waa saas aawoodee ibnu cusaymiin waa ka odhanaya raximahu llah muraaduhu raximahu llahu ana hadihi suurata kaafiyatun lilkhalqi fi lxasi cala altamasuki bidiin illahi biliimaani walcamali alsaalixi waaldacwati ila allahi walsabri cala dalik muraadka shaafici ilaahay ha u naxariistee waa in suuraddani ku fillaan lahayd buu uga jeedaa khalqiga ay ugu fillaan lahayd dhiirigelinta ama tirtirsiga lagu tirtirsinaayo dadka cala tamasuki bidiin illaahi qabsashada la qabsanayo iimaanka la qabsanayo iyo walcamali asaalix camalka saalixa la qabsanayo iyo waaldacwati ila allahi walsabri cala dalik afartaa khaslo tirtirsiga lagu tirtirsinayo ama boorrinta loogu boorrinayo ay ugu fillaan lahayd baa looga jeedaa walaysa muraaduhu ma aha muraadka shiikhu ilaahay ha u naxariistee ana hadihi suurata kaafiyatun lilkhalqi fi jamiici ashariica inay suuraddani tahay mid khalqiga ku filan shareecada dhammaanteed mid ugu filan yacni sidaa ugama jeedo halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk